dowladda koonfur galbeed horumar iyo dadaal iyo isku duubnibay muujiyeen dunida way ammaantay dowladda koonfur galbeed horumar iyo dadaal iyo isku duubnibay muujiyeen dunida way ammaantay dowladda koonfur galbeed xilalkiyo darajaday ummadda deeqsiiyeen dadkuna waa u dhan yihiin waa ku mahadsantihiin aad iyo aad aan idinkaga mahadinaya soo dhaweynta qiimaha ay qaayaha lahayd sidaad sharafta leh igu soo dhaweyseen magaalada Baydhabo oo runtii muddo haddii ninna si u fiiriyo nin kalena si u fiiriyo macnaha waa qofna ay la tahay inaan muddo dheer ka maqnaa qofna ay la noqonayso inaan muddo gaaban inaan ka maqnaa marka kolley muddo waxay ahaataba ama ha dheeraataa ma gaabnaato muddaan ka maqnaa magaalada waxyaabaha aan uga maqnaana waxay isugu jireen socdaal shaqooyin iyo fasax yar oo gaaban oo marka maadaama baarlamaanka fadhigii saddexaad uu noo soo gabagaboobay aan fasax yar oo gaaban aan qaatay oo reerihii inaan ku soo booqdo runtii marka halkaan ka tagay Baydhabo markaan ka baxay waxaa jiray kulan muhiim ah oo sidna aan looga baaqsan karin 3 maalmood magaalada Muqdisho aan uga qayb galayna annaga iyo dhammaan guddoonada kala duwan ee baarlamaanada dawlad goboleedyada kale iyo guddoonka baarlamaanka dawladda federaalkaba marka kulankaas 3 maalmood markaan dhameystaan sii gudbay oo wadamada Yurub wadan ka mid aan sii gaaray halkaas oo inta muddadii yareeda aan joogana ay igu suurta gashay inaan hay'ado kala duwan inaan la kulmo oo khusuusan kala hadlo marka waxyaabo marka ku saabsan horumarinta bulshada reer koonfur galbeed marka insha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin waxyaabo badan oo wanaaga waxa waaye waa kala soo kulanay ballan qaadana waa jiraan waxyaabo aan ka wada shaqeyn doono oo hadda baan ogahay inay diyaar yihiin ayaan la soo noqday insha Allah dadka ay qusaysay hay'adaha ay qusaysay wasaaradaha ay qusayn doonto ama qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay qusayn doonto insha Allah warqadaas inay tahay warqad been abuura baarlamaanku markii uu kala tagay halkan markaan ka tagaynay wax walba waxay noogu qoran yihiin jadwal hawleedkeeni halkan aanu ka iclaaminay xilliga uu xirmi doono kalfadhiga maalinkaas 17 bisha iyo xilliga dib la isugu soo laaban doono marka xildhibaanadu marka ay kala tagaayeen waxaan ku kala tagnaa iyadoo la og yahay xilliga ay jadwal shaqeedku bilaabay tayada kale ilaa iyo hadda baarlamaankeena tan iyo intii udubada loo aasay 3 bishii January sanadkii 2016 oo haddeertaan uu 2 sano jirsaday waxaan u maleynayaa in 3 kal fadhina aanu yeelanay ilaa iyo dhowr iyo 30 fadhina baarlamaankeena uu yeeshay marka saxaafadda waxaan idin weydiinaa hal warqad oo guddoonka baarlamaanka oo dhowr iyo 30 ka kulan oo aan baarlamaanka isugu yeereen warqad aan baarlamaan isugu yeero oo saxaafadda aragteen miyaa jiro marka baarlamaanka markuu isu yeeraayo markuu imaanayo waxaa jirta channel gaar ah annaga aan ku xiriirno aanu xildhibaanada aan ku wargelin marka warqadaas warqad been abuur ay ahayd qaabkii loo sameeyay cidii sameysana xitaa waad iska garan kartaa ciyaalka yar markay fiiraan xitaa waxa waa qof professional waxa uu soo sameeyay maaha marka warqadaasi totally waxa warqad guddoonka iska daaya macnaha xafiis ka mid ah xafiisyada baarlamaanka dawlad goboleed ka soo baxday ma ahan dowladda koonfur galbeed horumar iyo dadaal iyo isku duubnibay muujiyeen